Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa Wadani Podcast. Waxaan furaya anigoo ah Abwaan Saki. Maanta waxaa khadka ku wada jira walaashay Naqwo oo ah co-hostiga Wadani Podcast, qoys iyo Cumar Xasan, Sheekh Cumar Xasan. Kusoo dhawaada dhammaantiin. Sidaan ognahay maanta waxaan ka hadli doonaa arrimo ku saabsan qoyska. Sidaad u aragtaanna muxuu ahaa doodani maalintii horena waan furnay, maantana waa maalintii labaad. Dhibaatooyin fara badan ayaa qoysaska Soomaaliyeed ku dhaqan daafaha adduunka, dhibaatooyin fara badan ayaa soo haleeshay. Sidii aan uga nimid wadankii aan degnayn, dhaqankii, akhlaaqdii iyo waxyaalo fara badan oo isbedelay, adduunkii oo isbedelay. Marka dooda waan furaynaa, waxaana ka hadli doonaa su'aalo ayaan kusoo furi doonaa. Marka qoys kusoo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baad u mahadsantihiin meel walbaad joogtaan, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka qaybtiisii labaad aynu su'aalo dhowr ah aanu ku qaada dhigaynay. Dabcan aad baan u dhowaa, waad mahadsantaha walaal. Naqwo kusoo dhawow. ما شاء الله وبارك كل وهي والعافية وحنا في وضن دونا برنامج عن بلون ويجهره لما يستكفي إن شاء الله. عمر حسن كسو دواو. السلام عليكم دواء السلام يا ما شاء الله دواء هاي آد ما سنتين وحين إيتها فرحت إن إذا كلا سوق بكلا maadaama qaybtii hore kasoo qayb galin waxaan rajeynayaa qaybtan maadaama Naqwo ay tiri qaybtii ugu dambeysay waxaan rajeynayaa inayna halkaa ku ekaani. waa mawduuc maaragtay aad loogu baahan yahay marka inuu sii socdo insha Allah. Of course. Waxaan ka hadlaynaa su-aasha halkan taagan baa waxay tahay, su-aasheeda ugu horeysa waxa weeye hadduu calafku dhammaado labada waalid hadduu calafku dhammaado sidee labada waalid ay u wada korsan karaan caruurtooda xanaf la'aan? qoys. Bismillah. Dabcan waxaa laga yaabaa walaalaha kale inay iga aragti duwan yihiin. Ma qaba calafku inuu dhammaado caqabad baa timaada. calaf ma dhammaado, caqabad baa timaada. caqabada timaadana waxay u baahan tahay cidda dhinaceeda ay ka timaaday yani in la huba tusaaleeyo yani dhibaato ay gabar samaysay ama ragga qaar laga yaabe inay sameeyaan in la yiraahdo calaf baa dhammaaday oo calafku uu noqdo meel la xagxagto. cadaalad maahan. marka calafku ma dhammaado cillad baa timaada. guri kastoo dhisan especially ragga waxay aad u jecel yihiin guryahooda inay dhisnaadaan. dhaqaalo badan baa uga baxay, carruurtoodii banay ku korsanayaan, gabadhan reerka ay kasoo doonteen baa la doonayaa inay yani ku noolaato farxad iyo raynrayn. marka dhibaato badan baa uga jirta ragga, halka dadka badana aaminsan yihiin in culays iyo dhibaato badan ay dumarku ugu jirto guriga in uu burburo. laakiin culayska ugu badan guriga markuu burburayo aabaha ayuu gaaraa, dhaawaca ugu badan asaga ayuu gaaraa, dhaqaalaha ugu badan asaguu ka burburaa. falkiisii buu ku noqdaa haddana kadib inuu gabar kala doonto oo howlo kale u galo. marka cilada jirtaay ma aha calaf inuu dhammaaday. qaybta kale ee su-aashan wax badan baan daawanaynay aanu ka ahayn daawade waxyeelada carruurta soo gaaraysa, dhibaatooyinka dilka iyo dhaca iyo boobka iyo kufsiga ay wiilasha iyo gabdhuhuba ama loo geysanayo ama ay geysanayaan. waxaan qabaa marka si xanaf la'aan ah waxaa loogu korsan karaa carruurta kuna badbaadayaan oo badbaadadooda adduun iyo aakhiro uu ku jiraaba in aabbaha uu noqdo hoggaanka carruurtaasi. hoggaanka carruurta aabbaha markuu noqdo carruurtii dantoodii baa ku jirta, hooyadii danteedii baa ku jirta. for example haddii hooyada 3 iyo 4 carruur ah wadaadku ay ku kala tagaan cillado labada dhinac ka imaan kara. Let's be fair.
labada dhinac ka imaan kara waxa culays uu ku yahay carruurta gabadha baadan bay ku yihiin yani waa dulsaar bay ku yihiin si marka carruurtan ay u badbaadaan hooyadan ay uga nasato waxaan u arkaa carruurtii si xanaf la'aan in uu ay u wada haysan karaan especially inay hooyada marka weekendiyada soo booqato waqtiyada firaaqa leedahay carruurteeda ay geysato guryaheeda yani holidayada oo kalentood marar badan oo ay heli karto waqti in ay geliso waa loo baahan yahay laakiin carruurta horumarkooda iyo waxbarashadooda iyo xuquuqda lagu leeyahay marka la weynaado kale waxaa ka soo saari kara aabbaha waad maadanta naqwo maxaad u malaynaysaa wuxuu yiri qoys wuxuu yiri muxuu ahaa waa choice buu yiri uu qofka samaysan karo furitaanka wax maaha ka imaanaysa maxaad u malaynaysaa labada qof marka ay guursanayaan kuma aysan gelin inay kala tagaan markay labada qof kulmayaan waxay guursadeen inay cimrigooda samaystaan oo ay iska qaataan oo ay wada korsadaan haddana qoys wuxuu yidhi calafku ma dhammaado laakiin anigu waxaan arusado sida uu qofka bini'aadamka uu waqti ku leeyahay sida dhimashadoo kale calafku yahay oo calafku dhamaadaa way dadka kala tagaan laakiin muhiimadda koowaad sida qoys sheegay waxaan aaminsanahay saaraha weyn inaanu aabaha soo gaarin soo gaaro maadaama carruurtii ay meesha ku dhex jiraan ay u baahan yihiin aabba iyo hooyo wada shaqeeya qaaddoodii iyo maaragtay waxyaabay ku kala tageen isku ilaawa si ay ilmahooda u korsadaan hooyada subxaana watacaala ayaa siiyey xaq waxaan aaminsanahay ilmahanana hooyo la-aan noqon kare inuu ilmaha hooyadiis haysato oo dee Soomaalidu wada sameeyaan aabba wax ilma haysta ma jira wana yar yahay ama wadan uga kaliftay oo hooyadii baa soo tuurtay oo tiri ma hayn karo in maaragtay uu qalad waxaan aaminsanahay mar walba aabbayaal fiican way jiraan oo carruur wanaagsan oo korsada laakiin majority bulshadeena Soomaaliyeed waxa dhibaatooyinka badan ee hooyo ilmo korinaysa aabbaheena u shaqaynayo oo xag xoog dhaqaale midnana aanu isagoo maaragtay waajibka ilaahay saarayo inuu isu yahay oo uu la wareysanayo diintoodii la wareysanayo dhaqankoodii la wareysanayo korneeshiyahoodii la weydiinayo og yahay hase yeeshee anigu waxaan aaminsanahay nimanka Soomaaliyeed aanu dhalnay nala dhalay naqo codkaaga inuu soo laalaabanaya oo eegta haa ani xitaa waan dareemay iska fogeeyaa hadda teeba hadal baada waatiin marka waxaan aaminsanahay in ilmayaasha maaragtay laga tanaasulo xumaanta oo mar walba ilmayaha hoos loo eego oo labada waalid ay yacni daawaan waayo la tegay oo qof kala suurad baa imaada maashiyaa imaada in maaragtay carruurta loo la siiyo هذا كل سنة نقول يا ولي ولي وسانو نقول حتى تنتهي هيدفون سو قاعدة وأنا كسوقي إني أصور لعبه هاي عمر حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baa mahadsantiin waxaan u malaynayaa su-aasha inay tahay marka la kala tago laakiin weli waxay u baahan tahay in la soo cadeeyo horta intaan la kala tegin maxaa meesha yaala marka carruurtii la kala yacni marka la kala tegay carruurtii laga tegay maxaa xal u ah see loo wada korsadaa ayadan wax xanaf ah
wax dhibaato ah wax yani police laiskugu yeeray iyo restraining order iyo maaragtay carruurta ha usoo dhawaanin iyo waxa ayadan laisdahin sidee loo wada korsan karaa marka runtii arrintan divorceka ama furiinka waa arrin yani dhibaato fara badan ku haysa bulshooyin badan soomaalida keligeed maaha soomaalidana meesha keliya ama halka keliya u taqaano in arrimaha furiinka loo tago waa masaajida yani lama yaqaano qaabka maxkamadaha loo tago lama yaqaano qaabka maaragtay looyarada ama mediationka maaragtay loo tago marka dhibaatada jirtaa waxay tahay maqaab legala ayaa lagu kala haystaa carruurta oo sida maraykanka oo kale hadda systemka u yaal oo kale aabbahana maalmo ayuu haysanayaa hooyadana maalmo ayay haysanaysaa ama labada waalid mid baa loo ogol yahay inuu arko keliya maalmaha qaar laakiin full yani loo siiyo custody hal waalid amaba hal waalid laga wada fogeeyo oo maaragtay aan loo ogolaanba inuu arko carruurtiisii marka taa horta marka laga heshiiyo ayuun baa laga hadli karaa taa marka diyaar ma u yihiin ummadeena soomaaliyeed oo haddii masaajidii la tago waalidiintii ku xiriiray labada dhinac eheladii iyo qaraabadii yani dad ku taageeraya ma yihiin labada qofood ee kala tagtay in si wanaagsan ay ku kala tagaan wanaagna carruurtooda ku korsaan sida ilaahay ba yidhi haddii aad isfurtaan ama furiinka hadduu dhaco yani wanaag ku wada jooga ama yani wanaag ku wada taga xumaanna waxaan ku weydiinayaa codka uu soo noqnoqonayaa ma aqaan hadda ma soo laalaabanaya waan dareemayaa lama dareemaysaa maya kaada keliya soo laalaabanaya kuwooda uu fiican macna Umar mute gal anigana mute baan galayaa balan fiiri adina hadal ma ka wada I can mute don't worry sidaan u ognahay muxuu ahaa sharciyada iyo dadka meelasha u yaala ma laga yaabaa waalidiinta qaar aabayaasha inaanan muxuu ahaa custody labada waalidba inay u heli karaan laakiin custodyga aanay ragga Soomaaliyeed inta badan aanay qaadan iyaga oo ka ordaya xilkii ilaahay saaray inay qayb ka qaataan ama laga yaabaa maxaad u malaynaysaa dad fara badan baa waxay odhanayaan dumar fara badan baa waxay odhanayaan isla haysigii xitaa way diidan yihiin because maxkamadda marka la aado ragga Soomaaliyeed inta badan warqadaha ma rabaan inay saxiixaan ama ay custodyga half qaataan ama maalmahaas ay qaataan Umar su'aasha maasha Allah walaalkay Cabdiraxmaan baa rabo inuu soo boodo laakiin waxaan ogahay inuu dhanka kale u jalaaco marka si fiican baa isku naqaana Cabdiraxmaan marka horta run ahaantii wax ilaahay waajib nooga dhigay mise wax kale hadday tahay tan ilaahay waajibka nooga dhigay waxaa muhiim ah horta marka koowaad in la dareemo hooyo waxay tahay hooyo ereyga hooyo haddii carruur yimaadaan hooyo marka inay nimanka Soomaaliyeed ay iska saaraan yani cuqdada iyo maaragtay caloxumada ay u qabaan dumarka Soomaaliyeed oo ay ka eegaan yani hooyo carruurteeda korsanaysa taa waxayna tusaysaa marka aniga hooyadii dhashay hadday aabahay yani soo kala tageen oo aan ku soo koro yani aaba la'aan dhibaatada aan dareemo ma raba in carruurteeda ay dareemaan marka waxaa muhiim ah inuu aabaha dareemo diiniyana ilaahay subxaanahu watacaala markuu leeyahay wacbudullaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaanan waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu kadibna waa la sii kala qeexay yani markii xadiiska rasuulka sal ly slm ninkii u yimid uu yidhi yaa wanaagsan inaan la noolaado ama wanaag u sameeyo xusba yani saaxiibtinimada ama yani inaan si wanaagsan yani ula noolaado ama wax ula qabto ama aan u agjoogo mar walbo waxaa la yidhi hooyada 3 jeer buu ku celiyay hooyada markii dambena aabihii la yidhi yani aabaha marka taa waxay ku tusinaysaa awoodda ilaahay uu siiyey hooyada xadiis kale waxaa jira inayna laga yani xayuubin xoogna looga qaadan hooyada carruurteeda marka haddii la leeyahay si xoog lahaan raggii uga soo qaadaynaa hooyooyinkii carruurtii oo annaga korsanayna yani marka koowaad ilaahay wuxuu leeyahay walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn yani labadaas sano ee awlaadda ay hooyada xanaaneynayso
u fiirso xanaaneynayso aabbaha maxaa laga rabaa وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف aabbaha waxaa laga doonayaa outside sources waxyaabaha guriga ka baxsan laakiin waxa guriga ku dhex jira ama ha noqoto xanaanad ama ha noqoto tarbiyad hooyada ayaa iskale carruurtaana waa in ayada lagu kaalmeeyo xataa after divorce markay dhacdo liyunfiq duu sacatin min sacatihi qofka ma aragtay furay gabadha ay kala tegeen waa inuu waxa awoodda u leeyahay u bixiyo macnaheedu waa child support waa inaad ku taageerto xataa waxaa lagu leeyahay mararka qaar markaad kala tagtaan xilliyada ugu horeeya askinuuhunna min xaythu sakantum meesha aad degantiin wax ka siiya so waxaa lagu tusayaa inaadan xataa markii baa'in ay noqoto oy saddexdii talaaq dhacda xataa inaadan yacni hooyada soomaaliyeed ama muslimka aad kala tagteen inaadan yacni xiriirka u jarin oo aadan dhihin iga bax guriga iga bax iyo nolosha inaad soo dhawayso gurigaaga ay meel ka degnaato ilaa nolosheeda ay isku filnaanayso adigana lagaa doonaya inaad ku taageerto marka waxaa wanaagsan dadka inay bartaan diiniyan iyo sharciyada waddanka ay ku nool yihiin u yaala child support baa lagu leeyahay waa laga cararayaa child support oo wax daran sidee loo wal child support haddaad fiirisaan oo tirisaan waxaa la ii sheegaya famil hooyo nin baa wuxuu siinayay $1000 way kala tageen carruur bay haysatay lacag badan buu siinayay marka hore laakiin nin kaley guursatay markaasaa wuxuu yidhi hadda waxaan ka dhigayaa $1000 $1000 mayna ku qancina waxay tagtay child support application bay apply garaysay child supportkii wuxuu siiyey $600 so yaa marka khasaaro qaba hadda hooyadii baa khasaaro qabta negative 400 bay gashay asiga wuxuu ogolaa ayadoo xataa nin kala guursatay inuu weli carruurtiisii taageero uu siiyo $1000 si wanaag ay ku jirto laakiin ayadii waxay leedahay maya child support baa ku qanca marka child supportka waa in la fahmo child supportka waa lacag yar oo inta badan lasoo raaciyo DSHS oo kale ceed oo kale ay soo raaciyaan cash assistantga oo kale cash assistantgaana waxay ku xiranta inta carruur aad haysato laga yaabo haddaad 2 carruur leedahay 3 carruur leedahay inay ka yartahay markaad 6 carruur iyo 7 carruur leedahay marka waa muhiim inay dadka Soomaaliyeed sharciga fahmaan aniga hadda waxaan qaatay sharciga mediationka oo kale ayaan qaatay oo family badan baa mediation u sameeyaa hooyooyin aaba dhibaato isku qabo oo yani qaar xataa isfuri lahaa oo masaajida inay tageen ama meelo kala tageen oo de almost kala baxay ayaan alxamdulillah yani tusnay dhan kale wax ka tusiyey oo isku yimaadeen maasha Allah reerkoodii dhaqanay laakiin waxa muhiim horta marka koowaad in la fahmo furin markuu dhaco ilaahay wuxuuna amray inaan wanaag lagu dhaqmo wixii wanaagsanaana aan la hilmaano walaa tansaw alfadla baynakum wixii hore oo shalay xabiibtii iyo xayaatii iyo hooyada carruurteeda yacni wanaageeda ka dhaxeeyey inaan la iloowin oo aan hal mar daaqada laga tuurin marka insha Allah marka I hope in waxaa loo baahan yahay dad fara badan inay labada qof isku adkaystaan waxaa laga yaabaa dadka inay wadamadan yimaadeen inagu culturekeena wuxuu ahaa labada qof waxay lahaan jireen reeraa u dhexeeyey waxaa laga yaabaa wiilkii ama gabadhii keligeed inay familiga kasoo maqan tahay waxay xiirinayaan dee qofku markuu xanaaqana wuxuu xiirinaya ma laha qof la talinaya ma laha support system ma laha taasoo keenaysa ma garanaysaa qofkii inuu go-aan uuna xitaa aan u tixraacin ama uuna u fiirsan uu ku dhaqaaqo muhiimadda koowaad waxa weeye oo ugu muhiimsan in wiilasha Soomaaliyeed laga wacyigeliyo in ay carruurta maaragtay markay qofka dumara kala tagaan in ay ilaaliyaan oo maaragtay ay biilaan oo ay dhaqaaleeyaan oo ay yacni dee aan u sheego qaybta telefonaadka way furan yihiin qofkii raba inuu nala soo hadlo su-aalahaagana waad ka dhiiban kartaa waa mahadsantiin go ahead noqo sorry marka anaga dhibaatooyinka badan ee qoysaska Soomaalida haysta waxa weeye hooyadii baa ilmihii un wada hooyadii un baa ilmihii la silcaysa hooyadii un baa ilmihii wareejinaysa يعني aabayaasha intii badnaa mas'uuliyadii way tuureen taas oo mar walba loo u baahan in laga wacyigeliyo oo maaragtay loo sheego ragga sidaa sameynaya oo maaragtay dumarka ay culays badanna ku tahay oo ay de gurigii iyo banaankiiba aanay soo shaqayn karin
siduu wiilkaa sheegay maasha allah walaalkeen ahnana child supportka la sheega aan xitaa kuwa filayn nimanka qaar waxaad arkaysaa oranaya child support baa layga jiraa oo intaasaaba muhiim u ahba iyada child supportka la sheegay waa wax yar siduu walaalkeen sheegay waa wax aan maaragtay caruurta ku filayn hooyadii guri karay ku jirtaa korontay bixinaysaa gaas bay bixinaysaa gaari bay haddii doonta haysataa caruurtii dhar bay rabaan yacni waxaa muhiim ah in uu qofkii u arko inay hooyadan ilmihiisi korinayso oo ilmihii baahidiisa uu la qaybsado oo ilmihii jacayl ku beerto oo ilmihii ay wax ku xasuustaan maanta hadduu aabahood ama ka fogaado ama dhinto ee ilmihii odhan karaan oo aabaheen wuxuu ahaa qof wanaagsan waxaan xasuustaa saanaysaan isagoo noo sameeyey laakiin aabba hooyadii la xisaabtamaya oo day islaanta isku aqli yihiin oo leh $500 baa laga kaa soo jaro intaasaa kaa badan in maaragtay ay ka waantoobaan ayaan anigu dee mar walba jecelahay in lagu wacyigeliyo wiilasheena Soomaaliya qof baa ku jira intaana qoyska kuu gelin ku soco walaal magacaaga ku bilaabaya سو عاد كان ديريه كوسع ولا والسلام على دكتورك iyo macallinka iyo walaasha dhammaan iyo kuwan salaam alaykum xiriirinayo dhammaan insha Allah awal ilaa ma hadda iskale marka labaadna insha Allah waxaan u mahadcelinayaa ku dhaweey isku soo dibariday aad ay u mahadsan yihiin waxaan jeclaa inaan su'aal weydiiyo walaasha kulay haday suurtagal tahay insha Allah waa wax loo baahan yahay meeshan waxaan u soo fadhiisanay inaan su'aalo fara badan oo loo baahan yahay inaan bulshada u soo gudbino labada dhinacba waan wadanaa ha ka xishoonin ku soco su'aashaada aad baa u mahadsan tahay walaasha su'aashaan rabay inaan weydiiyo waxay tahay inta badan reer qurbajoogta dhammaan waxaa lagu wada celceliyaa mas'alada ama erayga ah hooyooyinka carruurtooda ha biilaano ama carruurtooda taqaanaa carruurta marka hooyada la furay ama carruurta la furin su'aashaan rabo walaasha inaan weydiiyaa waxay tahay waa kuma qofka soo sameeyey tirakoobka in aabayaasha Soomaaliyeed oo dhan marka xaasaska ay furaan inaysan carruurtooda aynan ka warhayn ama aysan xiriirinin tan labaad oo rabo inaan weydiiyo walaasha waxay tahay dadku inta badan isku falcelin maaha marka gabadha la furo ama la kala tago inta badan xanaaqa ama carada badan cidda hayso dumarka xageeda u badan tahay maadaama qof la furay ay tahay hataa haday dalbato still ninkii way ka sii xanaaqsanaanaysaa oo uma faraxsanaanayso okay aabahan marka la leeyahay carruurtaanu waxba kuma bixiyo ama carruurtii waxba ma siiyo waa aabo mar hore dacwo lagu furay uma malaynayo marka laba qofood oo colaadi ka dhaxaysa in ay wanaag dhex imaan karo ama maxaa la yiraahdaa meeshaan wax lagu tartamayo ama gabadhaanu ay hubka ka dhiganayso waa carruurtii u ah iyada sidee ku dhici kartaa marka hooyooyinka loo baahan yahay inay daayaan maaha aabayaashu inay daayaan inay carruurta bilaan aabo walba Soomaaliyeed waxaan u malaynayaa waajib ayaa ka saaran in carruurtiisa inay xaq u leedahay aabo kasta uu ogyahay hataa yuusan diin waxba aqoon u lahayn yuusan u lahaan haddana waajib inay ku tahay uu ogyahay carruurtiisa inuu wax siiyo hadduu mataqaanaa awoodeeda leeyahay u dhaqaalayo ama uu awoodo inuu wax siiyo meesha waxa loo baahan yahay ayaa waxay tahay in hooyada Soomaaliyeed inay marka hore ka fikirtaa iyadu intaan la kala tigin ayay xataa dacwada furtaan hooyooyinka qaar jaal saboodka intaan la kala tigin iyadoo la isqabo muran jiro ayay maxkamadda ama dawladda u tagaan yiraahdaan hadda ninkii naga carar ama naga tag hadaba nin la cayriyo isaga waxaan u baahanahay marka mataqaanaa anagu in la caawiyo okay ninka ma haysan telefonkiisa iyo adresskiisa iyo ma dhici karta marka nin dacwo ku furan tahay inuu mataqaanaa carruurtiisa ama ka warhayo teeda kale dacwadii gudbinaysa waxaa kamid ay leedahay mataqaanaa 100 mitir ii soo dhawaan ma garan karo marka ninkan qaabka xiriirka laga rabo iyo sida la rabo inuu la soo xiriiro marka cidda loo baahan yahay in wax la ogeysiyo ama lala hadlaa waa hooyooyinka kulay aabayaashu sidaan isleeyahay inay xagga dhibana ka yihiin aan aaminsanahay shakhsi ahaan aad baan idin salaama insha Allah su'aasha marka maxay ahayd su'aasha maxay ahayd bay ku tiri oo su'aashana lagu weydiiyo waa isdaafinaysaa
ما يسرافنا لكن دعوت كلو فرتي ويلك ما شاء الله لكن سؤال باسيفيكنا وقالها walaashu waxay tahay cidda walaashu waxay tahay waa in la hadlaa ragga Soomaaliyeed ama aabayaasha Soomaaliyeed cidda hadalka mudane waxay tahay hooyooyinka in la hadlo the first iyadu walaasha ma sameeyeen imise aaba ayaanan su'aashu waxay tahay aabayaasha yani iyo hooyooyinka kala tagay yaa tiro koob sameeyay inaysan aabayaashu ka wada tagaan waa qof ma cadaynta maxay cadaynaysaa walaasha maxay cadayn waysaa in aabayaashu aysan rabin caruurtooda ama caruurta la furo marka hooyada la furo su'aashu waa taa طيب ما شاء الله سؤال هذا هدان اسكو داينا كجوابه horta haddaan la is indhatiraynin oo dee maanta sida waddankeena ku socdo oo la isla wada indhatirayno si waddanka nooga burburay aanu beenta iskugu sheekayna aan ahayn waa wax jira oo ummaddu og tahay oo maaragtay xitaa waddankan hadda aan joogno maaragtay la tirakoobay oo la og yahay in maaragtay ay hooyada iyo aabaha markay kala tagaan oo aabaha uu maaragtay mas'uuliyadiisii dhammayd uu miiska saaro kana tago ma waxa la wadar iyo waxay ma waalan waa wax reality ah ma aha wax ku tirikuteen ah ma aha wax la iska oranayo waa wax natural ah oo maaragtay nimanka Soomaaliyeed sameeyaan maxamed xaruxin marka haddaan la isindhatirayn horta haddaan runta laga wada hadlin xal ma yimaado haddii uu qof walba is adkee is dhaho dee xalkii lama helayo waxa muhiim ah inuu xalka imaado hooyada markay leedahay aabaha yaanu intaasoo mitir ii soo dhaafin laga yaabaa inuu ama dilay ama laga yaabaa inuu u hanjabay dadkan xitaa ay u dacwoonaysa markay leedahay intaasoo mitir ii soo dhaafin waddankan sharci buu leeyahay waxaa la weydiinayaa sababtaas ayaa maaragtay lu leeyahay intaasoo mitir yaanu kusoo dhaafin oo hooyadii aabba dee ilmihii wada haysanayo aabba fiican dee dawladda inta iska timaadeen dadkan sharciyo waddan iyo dawlad bay dejisteen innagoo kale ma aha marka ma odhan karo dee hooyada keliya mas'uuliyadda ma qaadi karto ma dhihi karto oo waanu kala tagnay intaas yaanu ii soo dhaafin wax macquul iyo maskaxda galaysa midna ma aha hadduu aabaha violence hooyada u geysto ama dilo ama caruurta dhibo ama uu dagaal ku keeno markaas dawladda ayaa waxay siinaysaa maadaama waddan dee nabad loo sharci la joogo alaabtii Soomaaliya aan meesha ka socon waxaa leeyahay meesha Soomaaliya ma aha liiskuma dila halkaan dumarka lama dilo intaasoo mitir uma soo dhaafi kartid waa wax ay la fiiriyay oo la ogaaday hooyada markay child support ka codsanayso ay aabaha ka codsanayso dawladda ka codsanayso waa waxa qofka waa inuu ku xisaabtamaa ilmaha markay ninka kala tagaan waa waxay og yihiin dumarka Soomaaliya waa baqadin ku jirta waxay og yihiin ninkan hadday kala tagaan inuuna maaragtay dagaalka nimanka Soomaaliyeed inta badan waxa u badan ila wax kale ka qaadi kara ma laha moogta wuxuu samaynayaa inuu ku cadaadiyo caruurtii inaan waxba siin intaasuu ku cadaadinaya oo maaragtay kala dagaalamo dhaqaalihii marka hooyada maadaama dee ay waddan nabada joogto waddan wax la isku kala qaado joogto meeshii la isdhacay aanay ahayn meeshii ay uu ku xoog weynaa aanay ahayn oo meel dee dawladii sharciyaala ay tahay waxay leedahay oo dee aanay waxa laga yaabaa markay codsanayso waxa laga yaabaa inay hadal wanaagsanba ka dhaxaynin ama taleefanka ka qaban waayey ama ay system kala jirtay marka dee dawlad baa u dhaxaysa dawladdaasay waxay leedahay ninkii waan kala tagnay xumaanna ma aha waanu kala tagnay sidaa u ogaada waa way isdiiwaan gelinaysaa oo anigu dee wax dhiba uma arko shakhsi ahaantayda haye waay qoys baan ku celinaynaa by the way qaybta telefonaadkana waa furan yihiin maxamed aad buu mahadsan yahay su-aal aad u qiimo badan buu ku weydiiyey dabcan waxaa looga baxay wadar iyo waaxid yaa waalan يعني ولا أكسون هي تتكلم بأوك ولا محمود عبد الله إنه حوليه وحين أباهنا هاي عدين بين أباهنا ولا شيء سيدو كانوا حكرنا واجستانو سؤال شيء جوابت إنه قنيو وضن اللي يسكت لما تشوفنو وضن دمر كله ودي لما تشوفنو أدون كمال دمر اللي ودي لهدي أجر ترى قلبات كواي أستغفر الله وبها دمر كله ودي ترى لو قرعه لو أبيوسو حوله هذا لقاته قلوا قيب أي بحيان محل هذا عرفت كل جود أي حيان هدي لا يكون ما هيو
aan loo ogolaanin yani xaasnimo aan loo ogolaanin boyfriend girlfriend lagu qabo yani tomorrow la ciiriyo gabadhi soo shaqaysa 8 hours ayadoo ay dhalayso ayadoo ay xamilo tahay abuse halkan yaalo ma yaalo Soomaaliya ma yaalo ragga Soomaaliyeed ee galbeedka ku nool dumarkoodu sida ay dumarka reer galbeedka ula dhaqmayaan ulama dhaqmaan marka haddii ay qabto mentality ah walaal in waddankan aan la isku dilin raybka kufsiga dilka iyo boobku waa wax joogto ah oo aan kala go' lahayn halka Soomaaliya marka la yiraahdo 12 bilood imisaa rayb dhacay oo kale yani waa 12 bilood waa countable way wax la tirin karo hours imsaa dhacay gabdhaha reer galbeedka joogo ee la kufsaday ee Soomaalida dhexdeeda ahna waa zero waxba kama jiraan gabar galbeedka joogto la kufsaday ma jirtee ayada ayaa wadaadkeeda waxay ku tiraahdaa booliiska wuu i kufsaday iyo wuu i farxumay marka arrimaha nooca ah waxaan jeclaan lahaa in sidaa loo dhigo oo aan ahayn ragga Soomaalida wax lagu eedeynayo qof baa line ku jira waan soo geliyaa may waa sugaysaa sugde generalize ka wax loo sameynayo oo aabaha Soomaaliyeed waa sidan la leeyahay mid iyo labo duruufo keeni kara ayaa jira oo dhibaato aabaha gabdhaha qaar ay u geysteen iyo sas uu ka qabo inuu ciyaalkiisa booqdo iyo inuu gabadhaasi dib dambe isu arkaan sas uu ka qabo darteed yani intay fiilooyin isdhaafaan aabihii macnaha uu ka niyad jabo reerkan iyo ku noqodkooda iyo howlahooda imisaa ragga ayaan qaanaa xumaha loo geystay ilaa ay hadda laba fiilo iska taabataan dib u soo noqon tan kale aan ogaano ikhwaani fillah waxaan ka hadlaynaa hooyo iyo aabbo ma aha waxaynu ka hadlaynaa waa nin iyo naag weeyaan waa laba isqabta weeyaan labada isqabta ahaan aan uga hadalno culays ay keenaan maxay ku kala duwan yihiin laakiin haddii la yidhaahdo hooyo qof walbo berjeleec iyo waxaa qabanaya hooyadii iyo hooyadeed iyo arrintu sidaa maaha maya waxaanu ka hadlaynaa hooyo aabbo iyo caruur waxaynu ka hadlaynaa nin wixii in la qurxiyo wanaagsan tahay nin iyo naagtooda haddii la yiraahdo hooyo iyo aabe ee aad aabaha karaamada ka qaadaan dee dabcan aabaha iyo hooyada baa soo gelisay marka ereyga hooyo berjeleec ah la ka daayo aabe haddii aad tirahdaan ma dhahaysaan nin Soomaaliyeed baad leedihiin marka hawsha ha ahaato wiilkan iyo gabadhan kala tegay ha ahaato yaanay ahaanin hooyo iyo aabe maxaa la yiraahdaa sheekadeeda Shaafici soo geli ku soco alxamdulillah waa man kugu xira sida u og tihiinba raalliha waa walaalka baan isleeyahay xaggan ha iga soo waco dhinacan okay waan kusoo diraya numberka kusoo diraya waxa cumar xasan inkastoon kaa yara daahnay bal adiga dadka u dhexeeye qaybtii wadaadadana noo xisaabsan maxaad u malaynaysaa sidee buu xalka ku jiraa waxaad u malaysaa dad fara badan in meelo fara badan aan iska xaxaganayno aan is oranayno ma garanaysaa raggii iyo dumarkiiba is haystaan labada dhinacba aad u malaysaa khaladaada fara badan inay iyaga xitaa soo dhex galeen sidee looga badbaadin karaa caruurteena macalin cumar adoo raaliya yani bilixsaan insha allah walaalkay maxamed su-aasha abaayo uu weydiiyey wuxuu noo raaciyey u yidhaahdeen guriga markii ay dhibaatay dhacdo wiilkii gabadha ay kala tagaan wuxuu yidhi furiinka waxay ahayd inuu dhammeeyo culayskii iyo dhibaatadii inuu dhammeeyo tirtirahay weli gabdhihii way xanaaqsan yihiin xataa haddii la kala tago eedii iyo buuqii iyo murankii iyo ma sii dhammaanayaan marka waxay ku xanaaqsan yihiin baan kuu sheegayaa xanaaqsan yihiin haddaad noo qirto ad mahadsan noo sheeg marka way dhegaysa dee hadduu dee qof xanaaqsan uu jiri karaa hooyadu waxay ku xanaaqi kartaa keliya marka xaqiiqda laga hadlo hadduu aabbaha dhammaystiran yahay hooyada ma xanaaqayso laakiin waxay ka xanaaqaysaa maadaama hadday hooyada 5 caruura looga tegay oo 5tii caruura istay subaxii soo kacdo iskuulkii u diyaariso oo ay cuntadii u raadiso u soo shaqayso ay gurigii timaado oo caruurtii ay maaragtay meelihii kale la geyn lahaa ay geyso oo dugsigii ay geyso aabihiina
ama uu taraakoro ama tagsiilo yahay oo uu arrimihiisa keligiis iska wato of course bila aadan baa layaa waa la xanaaqaya dadku ma aha ma ogtahay malaa'ig hooyada waxay ka xanaaqi kartaa keliya waxaad u xanaaqsantihiin maya hooyadu waxay ka xanaaqi kartaa keliya ilmaha aad ka qaadateen kadibna oo gabdho kala guursaday afrika uu aado ama reer kale maya cid kama xanaaqaysa iskama eedeen hadday guurkiisa ka xanaaqaysa dhig ciyaalkii baan aad ka goysan dhibaatada may hooyada waxay ka xanaaqaysaa keliya waxay ka xanaaqi kartaa keliya marka uu aabbaha ay ka weydo waajibkii Allah subxaana wa tacaala uu saaray of course wayna xanaaqaysaa waa bila aadan waxay u baahan tahay iyadu waa hooyo isna waa aabbo in wixii maaragtay guurkii maadaama uu dhammaaday ubad baa yaala maasha xabad yar oo tufaaxa dukaan ka soo gadatay ma ah waa ilmo aad dhashay oo maaragtay waqti badan u baahan inaad geliso ilmaha ayuu aabbaha ula korin karaa hooyada intaasay ka xanaaqi kartaa hooyo walba haywa qofkana ku soo xiro waa second time qofka ku soo walaal ayaan lo السلام عليكم طبعا سبحانه ذاتي شغلات إنسان وشغل آدي هذا الغلص يخلو دعينا هاي شغلات ما عرفت إن لشي وضو وحرفت يعني كوي كارم بروجرام كان ذاك الدعدي وحن جران لها يعني هرتا سؤال نويديو بين عوالاشين iyo walaalaha dad Umar iyo qoysba sida dadkii xaaladaha Mareykanka oo dadkii way ka sii darayaan dhinaca youth marka noqotay carruurta Soomaaliyeed ayala kasir oo ay tinda waxa ii muuqda anaga isku maqan dadkii waaweynaa ilmaha dhalay iyagii baa isku maqan dumarkiina raggii eedeynayeen inay ragga ugu wacan raggiina waxaan leenahay dumarkii baa ugu wacan oo meeshii kala dambeyn ma jirto oo family future-kii reerkii maaragtay dumarkii baa kasoo horjooga anigu maxkamadaha la shaqeeya hooyooyin badan oo carruurtooda maxkamadaha keenana waan arkaa meeshii aabayaal badanna kuma arko marmarna waan isweydiiye maxaa u sababa in aabihii uu ka jirka ku jirin marka su-aasha waxaan jeclaan lahaa weydiinaya waxa weeyaan aragtidooda iyo experience walaashan waxaa weydiin lahaa walaal may jirtaa programyaal ka hadlaya dhinaca dumarka markay noqoto soo dhaweynta aabaha ama ha wada joogaan ama iyo wada joogin iyo may jirtaa program jira la dhahayo dumarka runtaan isku sheegno because marmar waxa weeyaan dumarku waxay wanaagsan tahay sheekadu dumarka iyagoo inay iswaaniyaan because hadduu maanta nin soo ag fariisto uu maanta oo dhan uu wacdiyo dumar laga yaaba inay ka qaadan weydo marka miyaa leedihiin programyo aad idinku dhexdiina ama public ahaadaan ama private aad idinku aad ka shaqaysaan sidii khaladaadka dhinaca dumarka ka imanaya iyo gafka sidii ay uga shaqayn lahaydeen also raggana waxaan weydiinayaa aabayaasha labada nin ee fadhiya meesha maxaa u sababa in aabayaashii laga arki waayo meelaha maxkamadaha ah markuu uu damage dhaco aabihii halkee buu ka dhacay iyo maxaa sabab u ah in aabihii uu lug kula jirin ilmaha yar ku dadaalka ilmaha yar siduu uga maaragtay badbaadin lahaa maxkamadaha iyo xabsiga balse haddaa ii yara tataaban kartaan aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin waxaa u arkana arrin aan eedeynayo idinku waxaan jeclaan lahaa inaa noo yara tataabataan insha allah jazakum allah khayr shaqada alla kasii wada waad ku mahadsan tahay inaad nagala qayb qaadato su-aalahaaga waa haddaana lagaaga jawaabaya insha thank you very much ayaanle aad baad u mahadsan tahay walaal ayaanle thanks ma ku hormaraysaa cabaar baad sugaysay wuxuu ayaanle ka dhiijiyey wuxuu yiri dumarku labada dhinacba wuxuu yiri dhibaatooyin baa ka jira dumarka miyay haystaan ma garanaysaa meelo isugu yimaadaan oo dee ay ku soo bandhigaan dhibaatooyinkan sideese wax looga qaban karaa su-aasha waad maqashaan malaynaya macalin cumar ma ku hormaraysaa macalin cumar u daayo labadiina maanta ad ishaysateen macalin naga raalli ahow maya anigu waaba xiiseeyaaba inaan dhegeysto dhib ma lahan waa wax dhibaataya ma lahan
runaantii horta waxaan jeclaan lahaa labada dhinac su-aasha aad bay yani u weyn tahay inaan walaasha hadday wax meel ku og tahay oo programyada su-aasha u weydiiya ayaan la inay uga jawaabto kadibna uu qoys difaaco aabayaasha kadibna aniga soo galay insha allah haye dhaqo ku soco wuxuu yiri maasha allah dumarku miyay leeyihiin programyo ay isku wacyigeliyaan dumarka dee horta waxaa loo dhiibay waajib ayna qaadi karin waxayna maaragtay waa maxay waajibkaas dee waajibka waxa weeye ilmihii bay full time job ku haysaa caruurta ciyaar maaha caruurta haddii ilmo yar lagu dhiibo saakay oo dhashay oo aabaha looga tago I believe inaanu hayn karin 24 saac oo isku soo wareegtay waayo hooyo shaqo adag bay haysaa way nuujinaysaa way u korinaysaa way u akhlaaqiyan bay u tarbiyadaynaysaa marka dumarkii dee waxaan dumarka Soomaaliyeed waa dumar aad u xoog badan inta badan dumar yowga adduunka ma yeelaan waxaas inta badan hadda waxaan ku wacyigelin lahaa oo aan isleeyahay program aad samaysid in dumarka Soomaaliyeed ay bartaan in uu aabaha hadduu xitaa diido ay gurigiisa usoo istaajiyaan caruurtiisa ay dhahaan waa kuwaana adeer ilmahaagi waa inaad timekaaga haysataa aniga waxaan maaragtay dumarka Soomaaliyeed inta badan hadda aan ku dadaalaynaa in aanan ka yeelin in aanu caruurta keligeen ku rafaadno aanan ka yeelin in caruurta aanu keligeen wixii qarasha naga galaan inaan caruurta xoog iyo xoolo waxaan hayna siino haddana naloogu abaalhayn haddana ay aflagaada ku sii dheertahay marka programmada ugu weyn aanu isleenahay hadda aad samaysataan aanu ku guda jirno inay dumarka Soomaaliyeed u xisaabtamaan sida dumarka caalamka ilmahan isaga ninkan dhalay hadday noqoto dhaqaalana ay reerkiisa la hadlaan dawladda haddii wax uga soo qaadi karta la hadlaan haddee ay noqoto hayna ay ilmihiisa intay soo wadaan ilbaabka usoo dhoobaan hadday isku wadan joogaan haddii kalena ay u diraan samarka ay dhahaan ilmahaaga waa kana this is your time aniga waxa u baahanaa maskaxdeeda inaan soo dejisto programyadaasaan insha allahu tacaala isleenaha aad samaysaan si ay u ogaadaan ragga Soomaaliyeed ay inay mas-uul yihiin ay dib isku soo xasuustaan qofka haddii mas-uuliyadda laga qaado oo aad hadda awlaadda guriga oo kale iminka ilmahayga oo kale adiga subaxii aan intaan soo kaco aan quraacdooda u diyaariyo wax walba siiyo wax walba u qabto dee haddaanan dhihin waxaan guriga waxaad ku leedahay shaqadan waa inaad shaqadan gurigaa ka qabataa saacadan waa inaad la seexdaa aada program qofkii u samaynin dee uu iska lumaya waa siduu rabay qofka bilaadanka marka waxaan isleenahay programyo noocaas aad samaysataan oo aad maaragtay dumarka caalamka la mid noqotaan no more xamaal dambe haye qoys waxaad ka oran lahayd taas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صفية سوق لباي تلفون كاسوق قرع ماشي كتيرة تلفون كشاشة ku qoran yahay kasoo qayb gal insha Allah waana one baa ka horeeya 612 recordka waxaad ka hormarinaysaa 001 kaas aywa go ahead watahay ayaan leh laba su'aal oo aad u qiimo badan buu weydiiyey tan hore oo abaay uu weydiiyey oo ay dhinac martay ma leedihiin goob aad isku wacyigelisaan ama aad dumarka uga digtaan dhibaatooyinka caruurta ku dhacaya problemo fara badan baa noogu yimaado yiri goobaha la yiraahdo maxkamadaha ay tagaan hooyooyin badan oo cabanaya ay ku arkaan marka goob aad isku wacyigelisaan si culeyskan oo idinkaga yaraado ma jiraan buu yiraahday dabcan waxaan dhihi karaa haa laakiin sidii la rabay uma jiro waa ay leeyihiin goobo iyo meelo ay isugu tagaan iyo codad ay isu duubaan iyo WhatsApp group ay isugu tagaan laakiin waa dhinac u badan feminist groups oo badan yihiin kuwaas oo yani meeshii caruurtii ay wax ka tari lahaayeen ay wax ka tarayaan yani ay ku dhibaateynayaan caruurta qudhooda iyo aabihii ay kala tageen taasina ay sababaysaa in badanaa caruurta aad ku arkaysid ayaan loo xabsiyada aad ku arkaysid ciyaalka isdilaya aad ku arkaysid kan maxkamadda saaran yani ruudiga ama xanjada yani waxyaabaha basiidka ah hadaya aad arkaysid
hooyooyinkii ku mashquulay aabihii ay kala tageen oo ay ilmahaasi marnaba aanay u ogolaanin ayaa qayb weyn ka qaadanaysa marka ma jiraan dumarka meel ay isugu tagaan ha way jiraan weliba waxa ay leeyihiin baryahan dambe goobo social media ah oo loogu talagalay in dumarka guryaha leh xataa laga baabi'iyo marka goobahaasi aad bay u leeyihiin su-aashii kale oo ahayd aabayaasha soomaalida maxaa u diiday in ay carruurtooda goobaha maxkamadaha ugu yimaadaan si ay u samata bixiyaan I think inaad si fiican ii maqlaysaan I know gabdhaha qaar inay diidan yihiin laakiin hadda cadaaladii xaqiiqda kama fogaan karno aabaha soomaaliyeed kuriishaha carruurta uu hooyada uu la korinayay intii ay su-aasha wuxuu ku yidhi aabayaasha sababta ay uga maqan yihiin oo ku soo wadaa aabayaasha sababta ay maxkamadaha carruurtooda markii la dhibaateeyo aanay u imaanin su-aashii kaana hoos bixin yes carruurta aabaha in uu maxkamad uga daba tago maba aha aabo haddaad i maqlayso wiilkaada iyo gabadhaada mar hadday xabsiga tagaan cidda geysay oo ku ababisay oo diiday hoggaankii wanaagsanaa ayadoon baa ka daba tegaysa waana islaamihii dhalay aabayaasha soomaaliyeed laguma arko kumana arki doontaan in ay cadaalad darro ku sameeyaan ciyaalkooda laakiin markii ay gacantooda iyo waxbarashadooda iyo laga saaro waxa ay dhalayaan culayska aad aragtay iyo ceebta aad aragtay oo ay hooyo badan oo keligeed ah carruurteedii maanta xabsiga kusii socdaan hooyo badan oo keligeeda maanta carruurteeda uu dhiigooda daadanayo hooyo badan oo keligeeda carruurteedana ay ku jiraan xabsiyo right here cross the street gas station aan u jeedo 13 jiradiiba xataa idinla noolaala waa gabdhaha carruurta keligood haysta xataa 13 jir ma hayn kartaan iska daa 18 jir iyo 17 jir waxay noqdeen alcoholism ciyaalkii aad koriseen waxa ay noqdeen ciyaal xabsiyada ugu jiro waxyaabo bilaa macnaa wiil muslin ahaa madow ahaa qaxootinimo aad ku dhashay ayaad haddana garan weysay inaad aabbahood u dayso isla markaana uu kugu nooleeyo adiga iyo adigaba nolol wanaagsan food stamp section 8 baad ka dooratay taasina waxa ay noqotay in xumihii uu ka soo baxo carruurtaada tan kale aan ku daray ugu dambeynaya waxay tahay aabayaasha soomaaliyeed yacni aan ilaahdo gabdhaha ismooday in ilmahooda meel ka soo saarayaan ogow maqal diid ama hadiidin daycare baad carruurta waxaad u haysataan oo keliya in aad dharka u dhaqdaan dugsiga geysaan iskoolka geysaan maxaa la yidhahdaa goobaha caafimaadka geysaan carruurta intaa uma baahna carruurta hooyo iyo aabba uma noqon karaysid carruurtana nin bay u baahan yihiin gabadhaada wiil bay u baahan tahay nin bay u baahan tahay gabadhaada wiilkaada wuxuu u baahan yahay oday rag buu u baahan yahay wiilkaada adigu meelne kama soo saari kartid mana noqon karaysid hooyo iyo aabe haddii labada ay noqonayso in mid loo dooro carruurta waxaa loo doori lahaa aabahood si ay u samata baxaan adduun iyo aakhiro ayaa le that is the reasons aan aabayaasha soomaaliyeed aanay u imaanin maxkamadaha waayo asalkii ayaa laga baabi'iyo loona diiday horumarkii ciyaalkii ay digsanayeen blogska loo saaray darteed aabuhu qalbigiisa mar horu ka xirtay la'annahu cidda gabaadka siinaysa culinka 13 jirka iyo 17 jirka ee daaqada ka soo galaya ee hooyadu ay qarinayso oo qaadka yani sigaarka cabayo oo qamriga cabayo oo drugs-ka cunayo ee aanan aabihii lala socodsiinin gabadha kalaabyada aadaysa garaca wada ee beenta iyo propagandooyinka ay u qarinayaan just because of hooyaan ahay the love doesn't make sometimes great jacaylka maxay yidhahdaan soomaalida maxay yidhahdaan too much love kills you jacaylka faraha badan aad carruurta u qabtaan waa waxaad ku baabi'iseen waan ka baxay jacaylka faraha badan aad u qabtaan ciyaal waxaan u malaynayaa jacaylka faraha badan ilaahay baa ku reebay oo ku beeray oo midaad aabba la leeyahay ma aha waa mid hooyo qaas u ah oo waa waxaan u tuureen u haysato ma fahanti laakiin waxaan u malaynayaa qoysow muhiimadda hadalka in aad inta badan aad dhaafayso muhiimadda hadalka waxa weeye oo micnaheedu yahay in hooyo walba ay rabto in ilmaha uu aabihii la korsado oo ay diyaar u tahay oo ay jeceshahay oo aanay diyaar u ahayn xil inay keligeed qaado
laakiin waxa laga laayahay aabbayaashii Soomaaliyeed in ay waajibkooda gutaan adigu waxaad ka dhigaysaa inay hooyadii kaligeed xambaaratay oo ay maaragtay aabihii eriday oo hooyadii culays rabto qofna culays ma rabo waxa weeye markii guurkii uu dhamaado aabihii Soomaaliyeed wuxuu tuurayaa waajibkii alla saaray oo dhan buu ka tegayaa kaligii ayuu meel marayaa uu shaqaysanayaa xoolihiisa meel buu dhiganayaa ilmihii iyo hooyadii baa isla rafaadaya marka hooyadii intaas sameynaysay intaas dhabarka saaratay daashay ayaa haddana aydan u ogeyn oo adigu aad had afkaaga ka qiraysaad leedahay ilmaha korisaa waa disgusting ilmo ma aha Soomaali ama dagaaladii ka hor ha ahaato ama dagaaladii kadib ha ahaato ilmaha Soomaaliya wax wada noqday oo meel wada maray waa ilmaha la soo koriyo hooyooyin ba soo wada koriyo aab ma soo korin marka waa iska nasiib darro in la yiraahdo maanta dumarkii inta rafaadsanaa ilmihii korinayay guriyihii wadankii wax u qabanayay masaajidadii dhisayay maaragtay rafaadsanaa in haddana loogu waco wixii korinayeen waa disgusting marka waxa aniga aan hadalka pointigiisa uu yahay why ay nimanka Soomaaliyeed markay dumarka kala tagaan mas'uuliyadooda u tuuraan adoon ka baydbaydin sababta ay ilmaha ula korsan waayeen hooyooyinka oo ay uga tagaan maxay tahay weey ma aha inay hooyada eridin ninka ma aha inay tiri ilma ila korsanaysid isaga ka tagaya waa wax natural hadaad isdintireenin wax oo aad qarin kartid ma aha wax hal shakhsi qarin kara ma aha wax laba shakhsi qarin karaana ma aha waa wax la og yahay marka hadalka pointigiisa ha dhaafin okay ma maqashid dab nin haya day lama yiraahdo dab haya day lama dhaho islaamaha waqooyiga America iyo Europe iyo galbeedka jooga ninka sii qabaa waa nin dab gacanta ku haya cidna hayn karimayso aniga ka tagay idinka carruurta ka tagay iyo guriga nooga dhaqaaqay maxay dabku yiri waxbayba ku dhashay awlaadaas yaro quruxda dareen iyo kalgacal bay wali dabka ka dhigay haday carruurta idin ogolaadeen in aad idinka haysataan revolution 2021 waxaan rajaynaynaa aabayaal badan inay carruurtooda la wareegi doonaan culays badan baa carruurtii ku qabateen wallaahi wala ku dhaartay waa in 25 hooyooyinka ducay idinku darayaan hadaa carruurtiina ka qaadataan duco qaybta telefonaadka furaynaa okaadiya number kalena waa soo wacay balukaadi laymanka ma khadku furan yahay السلام عليكم هلو عليكم السلام كسعة السلام عليكم والله وين السلام مالي مقلة واكو مقلة كسعة maanta waxaan u soo kala qolka hadal uu qays dhaxay horta runtii waxa loo baahan yahay hadaa rabtid inaad noqotid leader ama dadka aad ii sheeg wax u kala sheegtid adiga inaad xanaaqsanayn marka waxaan ka dareemaa qays isaga inuu xanaaqsan yahay naagaha dhan uu xanaaqsan yahay marka ma aniga ahaan ma u malaynayo nimankana inay qaldan yihiin nimanka dhammaan inay qaldan yihiin naagahana dhammaan ma qaldano sideedana qabista iyo furista waa mid ilaahay uu u baneeyey ninkana hadduu naagta furo ilaahay waxaa laga yaabaa inuu helo naag fiican tii hore ka fiican naagtana sidoo kale ninkii nin ka fiican inay heshaa laga yaabaa marka horta yaan iscunin oo loo malaynin inay tahay xumaan nin iyo naag hadday kala tagaan waa win-win situation midda kaleeto oo aan raba inaan ka hadlana waxa waaye aabbo markiisa horabo ay looga tegay oo naagtiisa ay ooga tagtay caawinaad la-aan ma u malaynaysaan inuu caawin doono markay kala tagaan ma u malaynayo aniga
dhibaatada ugu weyn oo haysata wiilasha Soomaalidana taas waaye xabsiyada markay isla tagaan maxkamadaha waxay dhahaan waxaan rabnaa custody judge wuu la hadlaa wuxuu dhahaa okay custody ma rabtaa haa aabbo fiicana tahay soo dhawow maxaa rabtaa 2 days ma qaadane 3 days ma qaadane that's waxa oo full share custody-ga waxa waaye aabaha in uu qaato ama 3 days ama hooyadana ay 4 days qaadato ama aabaha uu 4 days qaato ama hooyadana ay 3 days qaadato wiilasheen Soomaalida waxay dhahaan maya saas ma rabo okay hadaadan rabin share custody then you can have a share custody waxaa noqonaysaa markaas visitation inaan ku siino marka xoogaa waxaan mutaqays inuu fahmin aabayaasha iyaga qaata visitationka because ma rabaan share custody ma ahan hooyooyinka dhan in aysan rabin inay aabayaasha siiyaan share custody laakiin aaba markiisa hore gurigiisa uga tagay in uu xataa 2 days provide karayo ma u maayna ilmihii intuu qaato oo gurigiisa geeyo qado quraacasho intuu u kariyo uu haddana iskuulka geeyo ama wiilashiisi madaxa usoo jarto ama homework uu ka caawiyo ma u malaynayo aabaha rabo inuu timeki intaas la eg ilmihiisi inuu geliyo inuu ka tegi lahaa naagtiisa barbaleenka ugu weyn wiilasha iyo gabdhaha Soomaalida awlaadda isku dhal ay ku kala tagaan ma ahan inay isnaceen waxa ay ku kala tagaan waa awlaadda wiilasha Soomaalida maxkamadaha markii la tagana waxa aysan rabin in ay qaataan waxa waa share custody-ga ilmahooda iyaga banaanka ka maro because of timeki intaas la eg ma rabaan inay keliyaan wiilasheena Soomaalida waxay dhaan lacagaan bixiyaa dawladda ba cayraysiisaa ma iyada awlaadta nala dhashay no ma nala dhalin marka lacag waxba ma tarto lacag awlaad ma koyso waxaan u malaynayaa barbaleenkii oo divorce-ka saameeyey oo badinaayo North America iyo Europe in ay tahay wiilashii in aysan rabin awlaadooda inay time geliyaan hooyadii haday dhaqday ilmihii isbitaalka geysay dugsigii haday quraankii ku bartay guriga ilaa macalinka dugsiga 10kii soo siinaa macalinka iskuulka homeworkii soo siinaa dhakhtar inday u baahan yihiin tantali u baahan yihiin homeworkii u baahan yihiin wax walba in guriga laga caawiyo hooyadii waxaa loo baahan yahay inay cunto kariso inay kalin karayso aabi inuu yiraahdo biilaan bixiyaa ma u malaynaysaan in family lagu wada dhaqanayo naagaha dhanna waa xun yihiin nimanka dhanna waa xun yihiin because wiilal badan oo fiicanna waa jiraan awlaadooda caawiyo ma dhahayo wiilasha dhanaa xun laakiin waxay ogaataan wiilasha badanaa naagahooda ay kala tagaan dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa waaye in aysan rabin in ay father noqdaan marka barbaleenka waxba yaa la ataakarayn wiilashana yaa la ataakaraynin barbaleen waxaa waaye ninka rabo ilmihiisa inuu xal u heli karo ninkaan rabin ilmihiisa inuu korsanna dee xal aan u helaynin marka aniga saasaan kulley u arkaa maasha allah waa mahadsan tahay adeero وكان عليه عطف معلومة سارية aniga معلش مودي اسمه كلام علينا ما مغلسان waan ku maqlaynaa ها horta wax ma idin dhiman hadday wax dhiman yihiin insha allah okay معلومة سي ام اوكي ام وصل قناه ان شاء الله وبتشوف qof kale aan ku soo darnaa kudar no go ahead haye dadka maanta taraso ku soco waan ku salaamayaa abwaan adiga iyo inta martida ku ahba haye programka aad maanta ka hadlaysaana waa program loo baahan yahay aadna muhiim u ah
annagu Soomaali baan nahay oo inta badan isma tusno qaladka sidaan u saxnaa oo laakiin waan naqaan sida aan farta uga fiiqno annagu wadan waxaan nimid aanan dhaqankiisii aanan aqoonin waxaanu nahay dad culture gaara watay wadanka yimid gurigu maxaa la yidhahdaa aabbaha mas-uuliyadda kor hayay caruurtu ahayd